ودن كان مرحلة ذاك اللي قدسان بوصامري بقرطوي وصامري ديكتاتورني وصامري ان ديمقراطية ضدبن وصامري ميليتري وصامري مركا وحيالها سلان هاي اسبدل كان ايا هرساد وها ان اما كديغان هان وحكمدا امنيga shacabka iyo deegaanka oo noqday mid sugan amniga deegaanka maanta waxaan wada ogsoonahay 100% inuu yahay mid sugan oo qofka gurigiisa nabadgelyo kaga baxaya nabadgelyana uu ugu soo noqonaya xuquuqda bini'aadanimo waa mid la dhowri baan leenahay oo xuquuqda qofka shakhsiga ama asaasiga u ahayd inay tahay mid la dhowray waxa la dhisay jiil aqoon-yahan oo maanta hagaya siyaasadda deegaanka waxa socda horumar bilow ah oo dheelitiran si guud 12 gobol iyo 6 maamul magaalo waxaan dareemaynaa horumar bilow ah isla markaana haddana dheelitiran marka waa waxyaabahan isleeyahay waa waxyaabihii isbedelkan uu horseeday isbedel kasta oo dhaca waa qasab team ama group mujmal xaabiyo ama caqabad ku noqdo way jirayaan waa nidaamka isbedelka ay kamid tahayba oo isbedelka cid ay dareento inayna dan ugu jirin inay caqabad ku noqoto waa wax iska rabaaniya marka hadii aan nirahno marxaladda hadda taagan ama doorka iyo xisbiga ay kula yihiin waxaan aaminsanahay in nabaddu ay asaas u tahay horumarka iyo barwaaqada loona baahan yahay in la yeesho qorshe nabadeed si guud qorshahan leenahay waxa weeye deegaankan ama dalkaba inuu noqdo mid qorshe nabadeed loo qaadanayo kuna salaysan nabadgelyo oo shaqaqooyinka iyo dhibaatooyinka jira lagu wajahaya qaab nabadgelyo waxa kale oo isleenahay in xaalad kasto jirta ama deegaan ka jirta ama dalka ka jirtay ay noqoto mid wada hadal ama is-afgarad in lagu dhameeyo deegaan ahaan waxaan ku howlnahay in aan midayno aragtiyada ku aadan danta guud iyo danaha shacabka deegaanka Soomaalida marka taa laftirkeedu matragyada la qabanayo deegaanka waa mid uu ku leeyahay door muhiim ah danaha shacabka deegaanka Soomaalidana waxay maxaan ku raahdaa horumarkooda iyo danahooda ay ku jirta iyadana maxaan ku raahdaa ka marnayn haddana roolkeedu uu leeyahay marka waxaan isleeyahay jihooyinka hadda aan u jeedno ama marxaladaha taagan qaabka weeye qaabka maanta aan isleeyahay waa muhiimad bay u leedahay TPLF waan garanaynaa annaga waxaan nahay dhalinyaradii inta ay joogeen ku soo barbaaray ee joogid deegaanka nahay haddii aan dib u jaleecno gafafkii ama khaladaadkii ama dhibaatooyinkii ay deegaanku gaar ahaan deegaankeenu ay ka geysteen oon garanaynaa iyo saameyntii ay ku yeelatay haddii ay noqoto siyaasad ahaan haddii ay noqoto bulsho ahaan haddii ay noqoto dhanka dhaqaalaha waan garanaynaa mid maanta la isu sheegay maaha iyo saameynta ay ku yeelatay kadib isbedelkan markuu dhacay TPLF waxaan ognahay jihadii ay qaadatay ee ah maadaama ay ahayd dadkii 30 sano xukunka sida maroorka ku haysatay ama gacanta midig ugu jiray danaha maxaan ku raahdaa dhaqaalaha ama danaha siyaasadeed ba iyadu gacanta ku haysay sidina ay noqon weyday isbedelka markuu dhacay waxa ay noqotay sinaan qaab sinaana iyo cadaalad ah oo qoqobkii kuwana dib u dhaca kuwana sareeyo halka markay ka baxday danaha markay ka baxeen markay jihada ay qaadatay jihada dagaalka haddana waxaan ognahay xaaladda maanta taagan in la soo afjaray dagaalkii waxaan leenahay maanta guul baa la taagan yahay hawshaana waa mid la soo afjaray kaliya waxa loo baahan yahay waxa weeye shacabka si guud in nabadda looga baaqo nabadan hadda ka soo aan soo tilmaanay
wada hadalka iyo komishinka la asaasay shalay baarlamaanku ansixiyay si guud nabadgelyada wadanka qaabkii loo jeehin lahaa oo kaliya way xaaladda maanta taagan laakiin TPLF baa la dagaalamay TDF baa dagaal soo qaaday weerar bay soo qaaday iyadoo 2 isbuuc ka hor taa la soo afjaray marka taa maanta ma taagnee qaabkii xasiloonidii iyo dadkii shaqaqooyinka dhibaatada ay ka soo gaadhay qaabkii loo caawin lahaa oo kale way maanta marxaladda taagan